waxaa sheegtaa fircoonkii ummaddaana u jeedid oo dhulkan saaran fircoonkoodii yaabay kow abulahab labo abujahal saddex waliid ibnulhee magiira waxaa dooranaa abujahal yaa abujahal ku adkaysanay haa waa ku adkaysaa ka fiirso ma ka fiirsanaa ma fiirs macnaa ma fiirs magya yaa abujahal waay abujahal miya haa hambalyo oo guulaystay sax waay عليكم ورحمة الله وبركاته ومالين كله وحان كسوغانا هاي ودادا مكة المكرمة ما أنت وحان ودا بورصة بوحدة أو هدية أو كلا دودوان قف والبناء أو دودوينها كميدة وحو نقون دونا قولستي سؤالها وان فضلين دونا إن شاء الله تعالى أديغان هدي إداوانا أينا وان نقون كرتا قولستي هدي أد سؤالها قاركود أيان كسوي الدينو أدكيك جابتو حقا إيو كومنتيغا halka adiga daawanayso waa channelka YouTube-ka ee Macallin Muuse daawasho aan insha Allah hagaag haddana waxa aan soo dhaweynayaa tartamihii ugu horeeyay ee koowaad barnaamijku waa barnaamijka weydiimaha waxa taabagelisay shirkadda Sydney Taylor hoyga qurxinta ragga waxaan soo dhaweynayaa walaalkan adigoo ku bilaabayo magacaaga Abuukar Cali Bashiir Abuukar Cali Bashiir 1 ilaa 10 waxaad dalbanaysaa hal numberka su'aasha ku xusan aan ku weydiinayo waa ku fudeynaya waliba 3 option aan ku siinayaa saddexda laba qaldan midna sax waaye haddii aad midda saxda aad doorato hadiidan ugu guulaysanaysaa insha Allah hadii ila yiraahdo 1 ilaa 10 number qabso number 1 bislah waayahay waxa uu qabsaday Abuukar numberka koowaad uu qabsaday numberka koowaad waxa ku xusan sheeg goorta la dukanayo 1 salaadood bedelka 5 salaad su'aasha aan kugu celiyo mar kale waxa aad sheegtaa goorta la dukanayo 1 salaadood bedelka 5 salaadood option haysataa kow jawaabta koowaad marka qoraxdu ay ka soo baxdo meesha hadda ay u dhacdo labo marka oo masiixu dajaal uu soo baxo saddex marka nabi ciise uu soo dago aakhir zamanka saddexdaas mid kamid ah ay jawaabta ku xusan tahay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mustafa sayyid ahmed magacayga Abuukar Cali Bashiir jawaabta koowaad qorxada waa bari hal mar aan kugu celinaya si fiican u dhageysiyaa su'aashu waxay ku leedahay sheeg goorta la dukanayo 1 salaadood bedelka 5 salaad ee hadda aan dukanayno optionada aan ku siinayo jawaabaha ma waxa sax ah marka qoraxdu ay ka soo baxdo meesha ay u dhacdo mise marka uu masiixu dajaal uu yimaado ama marka uu nabi ciise uu soo dago aakhir zamanka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سجد صلاة الظهر عصر مغرب عشاء هذا الشخص هذا دكان كل صلاة ينقون دونان قورمين ينقونايا marka uu masiixu dajaal uu soo baxo ciise nabi ciise markuu soo dago mise markii ay qoraxda ay meesha hadda ay u dhacday ka soo baxdo sheekho taas arima qanaacday fahansiin aada u mahadsantahay ka qabiilka kaaga mad celinayna waa hagaag hadda waxa ila joogo tartamo kale magacaaga oo ku bilaabayo محمد علي محمد طبعا شروطها مكوع لنا مسوي فانسنتها وحواي نمبر قبسنين 1 إلى 10 أنا نمبر قبسنين نمبر كقبستيد سؤال شكو حسن هديات كجواب تسلا نمبر كاس هديد أو يكو كرتالو أما يكو حسن تاي أكو قول السنة أهلي يا نمبر هرو بحدي أدو ياهي أنا كنسل هاي كاس كراف وهو بحان كلها أي أوكي 1 إلى 10 نمبر قبسو أفر وايهي محمد مينو مقعاga numberka afraad aa qabsatay waxa ku xusan imisa sano ayuu xanuunsanaa nabi ayub aan kugu celiyo su'aasha mar kale imisa sano ayuu xanuunsanaa nabi ayub jawaabaha 1 16 sano 17 sano 18 sano 18 سنة يا 18 سنة جوابك ما دمس ميا مبروك waa ku guuleysatay jawaab sax ah bixisay ma sha Allah jawaab sax ah وهاجاك محمد وحول نقدي جولستي يجوه الرئي مانتا أما ترتميه يجوه الرئي مانتا جولستي نسيب كيس وحق ونقدي نمبر كودورتي أو ها نمبر أفر وكاسا وكا نمبر أفر وايه وحق ونقول جولستي نمبر أفر وحق حسن هديدا إن شاء الله تعالى هديدا وحق قوة لك الشيء سيدني تايلر هويدا قرحنتا رجع وأنا كعمة علنا أخونت هذا إياه ما شاء الله وهاجاك ولي وحق كسوة أنا وداد مكة المكرمة وبرنامج كني سؤالها جوابها أسبوع لها أها أو تابعيني شركة سيدني تايلور وهويجا قرحنتا الرجع هذا واحد إلى جوجو ويل كله أو دانيراه أديكوا مقعد كوبيلابا قادر حسن عبد القادر مياه يا عبد القادر واحد قبسته 1 إلى 9 نمبر قبسه وحي بحي أنا واي بحكوا ده أنا كده
yah nambarka koowaad wuu baxay waa la qabsaday laakiin lagama jawaabin laakiin yah okay nambarka koowaad waa yahay lagama jawaabin nambarka koowaad waxaa ku xusan sheeg goorta waxaad sheegtaa goorta la dukanayo 1 salaadood bedelka 5 salaad waxaad sheegtaa goorta la dukanayo 1 salaad bedelka 5 salaad jawaabaha marka qoraxdu galbeed ka soo baxdo markay qoraxdu ka soo baxdo meesha hadda ay u dhacdo ay ka soo baxdo kow jawaabta labaad marka masiixu dajaal uu soo baxo jawaabta saddexaad marka uu nabi ciise uu soo dogo aakhir zamanka saddexdaas mid dooro qoraxda waxay soo baxdaa bari waxay dhacdaa galbeed su'aasha aan ku weydiiyey goorma la dukanaya 1 salaadood maadaama hadda 5 salaad aan dukanno xilli waxa jiri doonto 1 salaad aan dukan doono jiri doonto xilligaas maxilligu nabi ciise soo degaya maxilliga qoraxda ka soo baxaysa ee dhinaca hadda ay u dhacdo mise waa xilligii uu masiixu dajaal uu iman doono qoraxda markii dhinaca soo baxay markii dhinaca u dhacday dhinaca markii soo baxay markaas ma 1 salaad la dukanaa jawaabtaada kama dambeys miya yah okay waa ma santahay aad ma santahay waa halal marti jawaabta siila hay waa kaaga mad cilmiina ka qaybgalkaaga yah waa hagaag haddana waxa ila joogo tartamo kale weli waxaan ku suganahay wadada Makka al-Mukarrama magacaaga ku bilaabayo magacaygu waa Maarig Cabdi Muuse mubaarak barnaamijka ma la socotaa mise kugu celiya okay barnaamijka waxa waaye nambara qabsanaysa 1 ilaa 10 kii baxay wuu baxayaan ku leeyahay isla nambarka aad qabsatay su'aasha ku xusan hadii aad ka jawaabto isla nambarkaas waxa wadnaa hadiyad ku dul xusan hadiyadaas nasiib yeelan doontaa waxay noqon kartaa hadiyad qaali ah hadiyad raqiis ah ay noqon kartaa marka nambarka ku xiran tahay okay 1 ilaa 10 nambar qabso 10 ma qabsaday nambarka 10aad waa yahay waa hagaag nambarka 10aad waxa ku xusan ee aad qabsatay waxay ku leedahay meeqa sano ayuu noolaa nabi aadan su'aasha aan kugu celiyo mar kale meeqa sano ayuu noolaa nabi aadan jawaabaha 3 jawaab aan ku siinayaa mid kamid ah sax ah labana waa qalad 100 sano 500 oo sano 1 sano nabi aadan Soomaa nabi aadan ha tafirteena Soomaa Allahumma salli ala Muhammad noolaa 1 sano waa jawaab kama dambayseeda ma sha Allah waa uu haleelay waa uuna saxay jawaabtaasi waxa jawaabta uu ka bixiyay waa mid sax ah maxamed deeno magacaaga mubaarak ma sha Allah waa hagaag mubaarak haddana hadiidiisa nambarka 10aad waa hagaag mubaarak su'aashii aan weydiinay oo si sax ah ugu jawaabay waxa ku dul xusan nambarka 7aad uu qabsaday maadaama aan u weynay nambarkii 10aad oo uu qabsaday saas daraadeeda hadiyadan oo ay ugu talagashay Sydney Taylor hoyga qurxinta oo nagu guuleystay nambarka 7aad aadan kaaga mahadcelinayna mubaarak waa maasantahay hal iyo laba maxaa leedahay Sydney Taylor aad u mahadsantihiin waana soo dhaweynaya kulli wax noqonaya adeegaha koowaad ku xidhnaan doona insha Allah ma sha Allah aad u mahadsantahay adiga barakallahu fiik waayahay halkan waxaa noo joogo mid ka mid ah asxaabteena oo maanta doonayaan inuu isku dayo su'aalaheena maanta waxaan ka rabaa 1 ilaa 9 nambar qabso 1 ilaa 9 nambar 5 ku dhaganaa 5 miya okay waxaan ku weydiinayaa nambarkaasi 5 su'aasha ku xusan ku weydiinaa waxaan ku siin doonaa option sheeg magacii hashi nabiga sallallahu alayhi wasallam dhageysiya sheeg magacii hashi nabiga sallallahu alayhi wasallam 1 waxa la yiraahdaa qaswa 2 buraaq 3 naaqahu isku daya 1 2 3 mid dooro hashi nabiga sallallahu alayhi wasallam horta hasha waa taqaan Soomaan aad hashi nabiga magaceeda waxa la yiraahdaa 1 qaswa ba buraaq 3 naaqahu 1 2 3 saddexdaasi mid saxda dooro nambar 2 naaqahu nambar 2 miya okay muqadkeysane ya waayahay waa uu hareer maray hadii uu markaas yani ka faa'iideysanaay naaqahu u dhahay waa hagaag weli waxaan ku suganahay waa wadada Makka al-Mukarrama dhalinyarada ayaan su'aal la dhaxmaraya mikrofoonka barnaamijka waa barnaamijka su'aalaha iyo jawaabaha oo uu taabagelinayo shirkadda weyn ee Sydney Taylor hoyga qurxinta raga hadda waxa ila joogo wiil kale oo dhalinyarada magacaaga Absaaq Maxamed Axmed Cabdirasaaq waxaan ku weydiin doonaa su'aal number aad qabsan doontaa insha Allah 1 ilaa 9 nambarka 1 waayahay nambarka 1 waxa ku xusan waxaad sheegtaa goorta la dukanayo 1 salaadood bedelka 5 salaad oo aan hadda aan dukanno mar kale aan ku celiyo waxa aad sheegtaa waqtiga 1 salaad la dukanayo bedelka 5 salaad hadda la dukanayo jawaabaha dhageyso mid dooro
marka qoraxdu ay ka soo baxdo meesha ay u dhacdo hadda marka uu soo dego masiixu dajaal marka uu yimaado aakhir zamanka nabi ciise calayhi salaam saddexdaas mid dooro markuu masiixu dajaal markuu imaado waayo masiixu dajaal markuu yimaado miya jawaabka dambaysa miya ya waa ku hambalyeynaya oo guuriyaan ku leeyahay jawaab sax ah ayuu ka bixiyay ninka odayga ah number waa hagaag cabdirasaaq su'aashii aan weydiinay oo uu ka jawaabay waxa uu nagu guuleystay hadiyadan number 1 ah ku xusan oo uu qabsaday waxaana taabagelinayso Sydney Taylor hoyga qurxinta ragga aad u maadsan tahay saaq waa kaaga madcelinayna aqoontaada iyo barashadaada halkaas si wadaaka insha Allah waa barnaamijkeeni ahaa ka jawaab ee ku guuleyso ee uu taabagelinaya xarqaanka weyn ee Sydney Taylor waa hoyga qurxinta ragga waxa ku weydiin doonaa su'aalo ku weydiin doonaa su'aashaas hadii aad ka jawaabtid waxa leedahay hadiyo oo kugu talagalay Sydney Taylor hadii aad tahay mo way hay number qabsani 1 ilaa iyo 9 number qabso midkii markaas oo yani kugu soo aado su'aashaas ku weydiina number 3 miya numberka 3aad way waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyay ee dhulka ku kibray waa ku celinaya waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyay ee dhulka ku kibray saddex option ku siinaa حتى إنجليش أما كوشي جامعنا أو سمعنا هنا كوشي جامعنا أديات واحد شيء تقف كي أجوري دول كوكي بري با شيطان تا نمرود جاء فرعون أكو عليو يا أكو علنا واحد شيء تقف كي أجوري دول كوكي بري شيطان بي نمرود سي فرعون صدح داسي مدورة سي فرعون ميا ويا هي وحولي هي فرعون جواب داسي وكبحيي وأوهر مري وحن كلي هي نصيبه عنه وهجاك وحنا للجوجو قف كلا نلجوجو سؤال ودين دونا نمبر قبستني نمبر 1 إلى يو نمبر 9 نمبر قبسو نمبر 9 نمبر سجال هذا ما بحي سجال نمبر كسجالات سؤال شك حسن هدي أوكي واحد شكتا وهي واحد شكتا فرعون كي أمدن أجدد أقول كان سارن فرعون كوديا ويكو أبو لهب لوا أبو جهل سدح وليد ابن الها مغيرة دورنا أبو جهل يا أبو جهل قد كيسني وقت كيسا كفيرسو ما في سنة ما فرس معنا ما فرس مجا يا أبو جهل وين أبو جهل ميا حنبليو أقول استي صح واي وحليه هاي أبو جهل وليه هاي هديد هذا قادني نمبر كسجالات كان هديد أنا أجدت وحكوت الجلي سيناتور وهويجا قرحنتا رجع سمركا إن شاء الله هديدا حافظ أمريكي أجنستيد بعد أنا أجد جود هذا أو واحد كلا كسيجرا عيد هذا ما أنت وكوت أستي ده تكوي أجد معنا بسكت لكن بعدها صدق واحد كلا كسيجرا عيد هذا واي هاي ترتيب حافظ أمريكا تفر مركا عوني سنة حتورنا بعد سيفان أفر هاي أدي هاي وما سنتهاي وهجاج وحين سوقرني برتمه يجبدي برنامج كسؤالها يجوابها برنامج كان إن أيضا أنا كل واحد تابع جليو سيدني تايلور هويجا قرحنتا رجع هاتنا واحد يجرب تاجن ويل سومالي دلني يراه مجعجا علي أبوكر يوسف علي أبوكر وحن كويدين دونا سؤال كو إلى يسقال سؤال كم ده بل وقرصو نمبر شنا دورت يا نمبر شن وهجاج نمبر كشناتين وبحيين كله هدي أنفيرنو واي هاي نمبر كشنات ملك جواب ما هنو وكجواب ويل كداي أوكي وهجاج نمبر كشنات وحا كحسن شيك مجيء هشي النبي محمد صلى الله عليه وسلم سؤال مركز الآن كوع عليو وحق شيكتا مجيء هشي النبي محمد عليه الصلاة والسلام جوابها دقيقة صوب شنادا A قصواء B براق C ناقة براقة دوتا يا براقة كم تنبس مية جواب كم تنبس 100
buraaqa uu doortay jawaabtaas uu ka bixiyey su'aasha aan weydiinay waa mid aan sax ahayn waa ka xunna غيرها في غيرها waa hagaag weli waxaan ku suganahay waa wadada Makka al-Mukarrama weli waa barnaamijkii waxaynu bartanka iyo gabagabadii kaga soo gaarnay barnaamijkii su'aalaha iyo weydiimaha oo uu taabagelinayay shirkadda Sydney Taylor hoyga qurxinta ragga haatanna waxa ila joogo wiilkan dhalinyarada adigu ku bilaaba magacaaga Muzammil magaciisa. waayahay Muzammil waxaan ku kala doorsiin doonaa 1 ilaa 9 number qabso Number 3. numberka 3aad ayuu qabsaday Muzammil numberka 3aad waxa ku xusan waxaad sheegtaa qofkii u horeeyay ee dhulka ku kibray qofkii u horeeyay ee dhulka ku kibray ee ma wuxuu ahaa shaytaan b ma wuxuu ahaa namruud c ma wuxuu ahaa fircawn Nimrud. waa hagaag jawaabta uu ka bixiyey oo ah namruud waa mid sax ah jawaab sax ah ayuu bixiyey Muzammil waxa uu xaq u yeelan doonaa hadiyadii ay ugu talagashay Sydney Taylor numberka 3aad waa hagaag Muzammil waxa uu nasiib u yeeshay hadiyadan numberka 3aad ee ku xusan tahay waa numberka 3 qabso numberka 3aad waxa ku yeeshay hadiyada oo culays xoogaan aan ka dareemayo in culays tahay yah maxaa leedahay hal iyo labo Sydney Taylor Oo meeshan iyo horumar iyo kobcana warjeynay. keep going aan kulena adigana halkaas dalka insha Allah hor u soco waa hagaag weli oo waxaan ku suganay barnaamijkeeni ahaa ka jawaab ee ku guuleyso waxaan joognaa wadada Makka al-Mukarrama barnaamijkana u jeedaan waxa tabagelinaya harqaanka ma yani shirkadda weyn ee Sydney Taylor number qabsanay su'aal ku weydiin doona numberkaasi oo qabstay su'aal ku xusan su'aashaas ku weydiina isa su'aashaasi hadii deedne bacdaada ku xusan number qabso 1 ilaa 9 number 5 numberka 5aad way wali waaye waxa sheegtaa sheeg magacii hashi nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga sallallahu alayhi wasallam hashiisa magaceeda laga rabaa waxaan ku siin doonaa ba ta ja midooda dooranay ba waxay ku leedahay qaswa ta buraq ja naqahu su'aasha saddex ka jawaab waxay noqonaysaa aswa ya aswa qaswa qaswa mada qaswa qaswa wa ba ta ja maxalada marka ba كل معنا قصوى تا براق جاء ناقه ما يقول حرفي وسعين قصوى براق ناقه قصواوة وحولي هاي قصوى همبليو ووك جوابي واي هاي نمبر كشنات فيري وهاجاك هديدنا أجدد وحقوق تلقلي حرقان كوين سيدني تايلور سو مركا بعد مركا فريسة ولي دحدت وواح كلا كسي جري بل إن شاء الله إيش كهاي إن شاء الله مركا أفورتت كباشال معنا أديان وهاجاك قيبه دم ببرنامج كا أيون سوغارني وسؤالها يجوابها ويديمها أو تابجرين أيو شركة سيدني تايلور هويجا قرحنتا الرجع وحيل جوجو كالسو دو مقعاجا أحمد أحمد وحن كويدين دونا السؤال كو إلا يستقال متكمل لبح نمبر كأفراد هذانو بحين وكويدين دونا إن شاء الله نمبر كأفراد ويا هي نمبر كأفراد وبحي نمبر كتضواد ويا هي وحقات شيكتا إمسجر أيوها النبي سليمان مركي وأبيس حلك كلا وريجي سؤال كو علي مركله النبي سليمان ما يقصنا أيو جري مركي وأبيس بقرتي نمذا أو كلا وريجي جوابها A 8 جر B كوي 8 جر C 12 جر جواب نهائي 100 كم دم بس 100 معناها جواب كم دم بس 100 يا سؤال شان ودينا جوابته وكب حي وامد صحة وياي أحمد أو نقدي جولستي وحقنا نقول جولستي هديدان أو أي وقت على شيء سيدني تايلور أي وقت على شيء هديدان هو هل يلهم حالنا سيدني تايلور حاليا ميلسل ما شاء الله أديك أنا حقولنا كيب جوين قروس عود ده تنسيق إن شاء الله وهجاك وحيناصو هراي لبس سؤال أوكلية لبدأ سؤال جوابها كحسن قفكي إلهي وهليشيو لبدأ هديد بورصة النوجو هراي وقادنا أنا قال أنت كبعنا إن شاء الله تعالى قال سودو لبدأ هديد هل هديد قادنا متكمل مقعد عبد الرحمن يوسف كاميرا دينا فيري سكودي أنا يسوي فيري الكاميرا فيري وياي نمبر هذا السجالي محنو هذا السجالي سديد سجال مارنو سديد سجال متقبصو سديد يا سديد
nambarka 8aad oo uu qabsaday waxaa ku xusan yah nambarka 8aad waxaa ku xusan waxaad sheegtaa saxaabiga kaliya ee quraanka lagu sheegay magaciisa waxaad sheegtaa saxaabiga kaliya ee lagu sheegay quraanka magaciisa jawaabaha aan ku kala doorayo waxay yihiin A Zayd ibn Thabit B Zayd ibn Haritha C Zubair ibn Awam Az-Zubair ibn al-Awam saddexdaas mid qabsanaysa saxaabigii quraanka lagu sheegay saxaabiga kaliya ee quraanka lagu sheegay ugu cid marka jawaabaha inuu yahay kow Zayd ibn Thabit labo Zayd ibn Haritha saddex Zubair ibn Awam زيد بن ثابت يا زيد كيف زيد بن ثابت يا زيد بن ثابت جوابك ما دبست مياه جوابته وكبحي سؤال شان ويدينا ويا الصحابي كليه قرانك لو شيغاي وجواب صح وهاغاق هديده نمبر كيدو وياهي نمبرka 8aad ayuu nagula guuleystay ninkan odayga ah hal iyo laba maxaa leedahay waxa kugu talagashay hadiidan Sydney Taylor horta marka hore iga guddoon hadiida waxaanu kugu talagashay Sydney Taylor hoyga qurxinta ragga maxaa leedahay hal iyo laba hoyga qurxinta ragga guuleysta ما لنا أنا كنا وحنا كلنا keep going هروس ذلك نركز كثير ودان كلنا okay thank you very much وهجاج وحنا سوق قارن سواشي قدام بيسي برنامجك سواشان خيار مرهن نكا وويدينا دوك الجوابنا هديدي سوق هذانا إن شاء الله سواش وحي كلها ده هاي واحد شيكتا قفكي بلابي اسمه مسجد الأقصى واحد شيكتا qofkii bilaabay dhismihii Masjidul Aqsa jawaabaha dhageyso digaaga fursad fiican u dhageyso koow wuxuu ahaa nabi Daawud labo wuxuu ahaa nabi Suleymaan saddex wuxuu ahaa nabi Ciise waxa nabi Suleymaan nabi Suleymaan jawaabka ma dambeysmiya jawaabtaada kama dambeysmiya su'aashan oo aan weydiinay ninkan odayga oo ah qofkii bilaabay dhismihii Masjidul Aqsa wuxuu ku jawaabay oo uu yiri wuxuu ahaa nabi Suleymaan waana jawaab qalad ah واتهاي إمكانه واحد دينا عيجة جوجو ويل كان مجعجة عبد الرحمن سؤال أن كودينا يا طبعا وحي تهاي هل سؤال كلية أو نهر برنامج كواي شيك قفكي باللابي اسمه مسجد الأقصى جوابها A نبي داود B نبي سليمان C نبي عيسى أنا واسكتيا جوابت نبي داود حاجة فيري جوابت أنا واسكتيا نبي داود جواب كم بس مية عاد بحسه مجعجة محوها عبد الرحمن سؤال شان ويدينا واحد قفكي باللابي اسمها مسجد الأقصى جوابته وكبحية أوه نبي داود والجواب صح ما شاء الله مبروك أوغوريو همبليو أو كلنا هاي خيرها في غيرها ما شاء الله هاي معنا قد ديدان نمبرك استقال أو كل حسن وحي واسبوع قد من النوم قال هذا السنين دي ما ما نو وبالله التوفيق وصحر لنا برنامجكم مركع أي أبص عندك ومركع كلا هذا مركز وهجاج هل كاسينا واحد إنه قصة إلا ذي برنامج كأني وديما سؤالها هذا أنا وكلا عن قبل أسبوعي هالمر أوكليا برنامج كسؤال يتابع جلسوا مر والبي وقت والباء سيدني تايلر سيدني تايلر وهي أنت المقال كان مقال كحاجة إنه كل منه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.